nimankii mushrikiintu dhexday u galeen markaasay ku soo baxeen nin maalqabeena buu ahaa Suhayb radiyallahu anhu Aba Yahya waxay ku yiraahdeen Suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada Makka noogu timiday waxa dhaqaale ee maanta haysatana magaalada Makka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxa doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid Makka dhexdeeda aad ka samaysay inaad Madiina la tagtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yiri waa ku dilaynaa wuxuu yiri waad dilaysaan laakiin ana waan dili buur ana wuxuu ma niga dili ogaada buur dagaalkana qaana buur nin waxaana hay Roomiya leebka sida loo gana ayaan qaana haddaad idishaan waad iga tira badan tihiin laakiin ana rag baan galaafan buu ku yiri haddaad dhaqaale oo doonaysaan dhaqaalaha ana ay nisiin buur lacagteedii oo dhan waan nisiin intaan watano gacantan iniga saari magaalada Makka ee ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalena waa nii tilmaami laakiin dariiqa ay banayay buu ku yiri dariiqaas waayo nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadeedii baa ka daba tagaya iimaankayga iyo diinteyda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diinteyda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqa ay banayay buu ku yiri mare agtooda diinta qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh وهاجاك بيدادين لعقتي بقعنت كسر وكان قات مقالة مكان من الهبلايا العقبة يقول عسنا كسر فقط يقول هل كان كلا صباح لكن وضد أي بنا يبكوني رسول كيجيب أن نتجي عليه الصلاة والسلام ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة أسعدان هجرة مؤبدة ماها هجرة يرو واختيار أو كوبان انتي مقنادان أي مقالة مكة كسون نغنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل ذو ذي بيكتغيان بيروه ذي بيكتغيان تجارة ذو ذي بيكتغيان قرابة ذو ذي بيكتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي ودن بوسيي وددي bay u baneeyeen markaas oo socday hal saaca gudaheed ayuu ahaa nin qaniyo malqabeena saacad kadibna wuxuu noqday nin faqiir uu noqday soo faqiira oo gacantiisa shilin ku jirin ayuu magaaladii Makka Madiina soo galay baa la yidhi ayaa soo dhaweeyay nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam oo muxuu nabigu ku soo dhaweeyay ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى بيعك قناعسك هذا إلهي لقى شيء واتكم عايشين النبي وكيد ما أنت لأن اختبار بوها اختبار إلهي الرسول كأردنع يا دوية هذه أردنع كلا دورة بيهيد لأن إلهي عز وجل وحو كل هامية صحابي قاس إنه يراد العقد قيمة ملقاتها لكن نبي الله محمد بان كدبتك فرها يقعد وضدها إيه بنية امتحان لأن مركز النبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى بايع مشتركة ما أنت إلهي أدي إلهي إن الدحمري وأتكلم مع الشيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العادي وحي با النبي الله أوشيك وحي ماشى قضيته أي كذا عايز ومكة ودويد تلفونات زمن كان هاي سنية آلات كان أقوى اتصال الناس سريعة وحي أردن بأدوية ده مركبة أوجد بيني ما هيسن لكن جبريل بنبي كسر دقو وجو الرمية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كمدة بإلهي إلهي من نفتي سي حوله سي دقاله سا كويب سنة يا إلهي رضيه سا وأبا يحيى أيا كمدة بلقيري صهيب الرومي بصوص سعدا ودقاله سي كدورتي إلهي الرسول جسن ورالي قليا كدورتي لعقتو أكتو قيمة مله قبيلكو أكتو قيمة مله دبلومكو أكتو قيمة مله أقلدو أكتو قيمة مله دولكوغو أكتو قيمة مله
agtooda waxaa qiimo leh ilaahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam. innagana maanta dhallinyaradeennu hadday cadhoodaan waxay ku cadho baxaan inay ilaahay nebiga aflagaadeeyaan, ay diinta aflagaadeeyaan, oo malaa'igta aflagaadeeyaan. oo miyaanad ogayn niman qur'aan akhrinaya oo xufaada caydoodii in layidhi waad ku gaalowdeen munaafiqiinta? iska daa diin iyo malaa'ig iyo ilaahay iyo rasuulku afka lagu taagee. yaa macshar alquraa, nimankii munaafiqiinta ee yidhi abaadar iyo suhayb iyo bilaal bay arkeen oo meel fadhiya, weliba safar bay ahaayeenoo qaswad jihaad bay u socdeen. war qoladiinnan qur'aan akhriska badan lahow baa lagu yidhi, marka cuntada la cunayana maxay niga cantuuga weyn, marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan? ereygaasi ka warrama. waa ereygan iminka soomaalidu ay tidhaahdo haddaan culumooy cadcun mooye ciidanka haddayo. xaggaa qolooyinkayga galbeedka ay idhaahdaan haddaan culumooy cadcun mooye ciidanka haddayo. maxay ka dhigan tahay? hadalka ninka munaafiqa uu yidhi cahdigii nebiga sal alla alay wasalam, yaa macshara alquraa, ururkiinan qur'aan akhriska badan lahow, marka dagaal la galayana maxaa iniga fulaysan, marka cuntada la cunayana maxaa iniga cantuuga weyn. ereygaa iyo ereyga innaku aan leenahay isma tegin ya waa istegeen. ereygaa baan la yidhi may waad gaalowdeen. laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. wax cudurdaara ood sheegan kartaan ma jirta baa ilaahay ku yidhi. waad gaalowdeen baa lagu yidhi. iimaankiinnii kadib gaalnimaad ku dhacdeen baa lagu yidhi. waad gaalowdeen. maxaad u malayn markaa ninka ilaahay iyo nebiga afka ku taagayana? ilaahay hanu soo noqonno, han toobadkeenno. diintu kaftan ma gasho. wamaa huwa bilhazli baa ilaahay yidhi. wamaa huwa qur-aanku dheeldheel mu galaa? dheeldheel ma galo. ma aamana bilqur'aani man istaxalla maxaarimahu. wixii qur'aanku xarrimay ninka xalaashada ilaahay iyo rasuul iyo qur-aankiisa ma aaminin baa la yidhi. qur-aanku muxuu xarrimay? qur-aanku beentuu xarrimay. qur-aanku muxuu xarrimay? gabadhu inay dhar khafiifa intay xidhato magaalada dhex marto. qur-aanku uu xarrimay. qur-aanku wuxuu xarrimay diinta in lagu dheeldheelo. qur-aanku uu xarrimay. qur-aanku muxuu xarrimay salaada inay camdan kuu dhaafto. qur-aanku uu xarrimay. shareecadda islaamku waxay xarrimtay ninka xalaal ka dhigta buu nebigu leeyahay. ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankiisa ma aaminin buu yidhi qofkaas. ilaahay hanu soo noqonno, han toobadkeenno, natuub ila allah. oo diinteennan islaamka han ku toosnaanno. asbaabta inaad diinta ku toosnaata ku dhib yaraynaysana waa labadaa shay bay culimmadu leeyihiin. aliimaan, iimaan dhammaystiran. iimaan hadba inta iimaankaagu ziyaaday diintaadu ziyaadi. iyo maaragtaane mujtamac wanaagsan. mujtamac wanaagsan maxaa laga wadaa? waa bii'adda, waa bulshad wanaagsan. ciddaad saaxiib ka dhigatid unbaa diintooda adigana aad qaadana ogow. laa tusaaxib ilaa muuminan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi. haddaad cid la saaxiibi, qofka muuminka la saaxiib buu nebigu leeyahay. gabadha muuminadda ha la saaxiibto. wiilka muuminka ha la saaxiibo. haddii saaxiibkaagu uu yahay mid muumin oo taqwo leh, xagga khayrku kuu jiidi ogow. walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi. haddaad wax bixinaysidna waxaa awlaaya inaad siisa ka ilaahay ka baqaya. haddaad sadaqad bixinaysid, haddaad sakada bixinaysid, xataa qaraabadaada haddaad wax siinaysid, kuwooga alla kacabsiga la xidhiidhi oo horta wax sii. limaada? kan ilaahay ka baqaya waxaad siisaa ilaahay taacaddiisu u adeegsan oo wanaaggu u adeegsan. haddii aad siisa laakiin kan macaasida iyo qafladda ku jira, waxaad siisa ilaahay cisyaankiisu u adeegsan. marka mufsidka ha taageerina, saalixa ayaa la taageeraa mar walba. saalix iyo faasid, mufsid iyo muslix. dadku waa afartaa qaybood. mid waa saalix, waa mid isagu wanaagsan keliya bas naftiisa u wanaajiyey.
dadka kalena waxba kama gelin saalix baa la yidhaha waa saalixun linafsihi waa qofka keligii naftiisa wanaagsan wanaajiyey weeyaan midna waa muslix weeyaan naftiisana uu hagaajiyo uu toosiyey dadkana uu hagaajinayaayo wuxuu leeyahay oo khayrka kale ku soo xidhma buu leeyahay madaaristuu furayaa ummaddii buu islaaxinayaa qur-aankii buu barayaa gabdhihii buu asturka kala hadlayaa sunnadii nebigu ummadda ugu yeedhayaa masaajidda tacmiirka ugu yeedhayaa waa muslix weeyaan kaa muslixu intuu adduunyada joogana ilaahay waxa uu leeyahay halaaga soo dadjin mayno وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون با إلهي يدي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلهي ربك ماها كقرية ظلم كهلاقايا أيضو إهلكيقو أيهين كودتك وناقوك كشقاينايا دتك قرية دا كنول حتى هدي شركي أي كجران هدي فساد أي كجران هدي ظلم أي كجران لكن دد مصلحين وناق أمد لدح وريقيا أي دح جوغان dadka islaaxinaysa ay ku dhex jirto ilaahay waxa uu leeyahay halaagooga soo dadajin mayno halaagi mayno amma haddii dadku ay yidhaahdaan waan wanaagsanahay annagu dadka xunna waxba nagama gelin kaas saalixa halaaga soo socda celini maayo macal isagana waa la halaagi markaas صالح يا مصلح فاسد يا مفسد فاسد كنا waa ka naftiisa uu fasaadiyay mufsid kuna waa kan umada fasaadka la dhex socda balaayada qayliyaysa iyo meela ayuu dhalinyarada ku kulminaya dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilashu meelaha ku kulmaan buu sameeynaya mufsid alaat alfasad meel walba dhigaya marka afartan qole adduunyada ku nool saalix muslix fasid iyo mufsid marka mufsid muslix waa inaad noqotaa muslix dadku inay noo hagaagaan waa in laga shaqeeyo hagaaga ummadda lidaalika madarasadaha jazaahum allahu khayr macallinka noo yeedhay allah ka jazaaysiiye waa asbaabta mujtamaca islaaxinaysa waxaa ka mid a madaarista qur-aanka ka mid ah bal waa ka kow qur-aanku qofku markuu qur-aanka barto qur-aanku qofka iimaanku u biirinayaa qur-aanku qofka xishoodku barayaa qur-aanku qofka akhlaaqdiisa u dhisayaa qur-aan haddii madaarista baa layidhi haddii man fataxa madarasatan aqfala sijnan bay dhahdaan culummadu qofka madarasad qur-aan lagu dhiganaya meel ka furay waxay ka dhigan tahay jeel buu ninka ummadda ka xidhay laana jeelashu meel lagu soo islaaxa maaha meesha ummadda ku islaaxaysa waa madarasadii masaajidda weeyaan in ummaddu masaajidda ay soo gashaana dacwadda u sababa in dadku ay madaarista ku soo xidhmaana macallimiinta ayaa u sababa daaciguna dadku masaajidda ku soo shubaya sida ay qasabadu biyaha ay barkada ugu soo shubayso ayuu daaciguna maaragtaanay masaajidda ummadda ku soo camiraya macallimkuna dadka ayuu ku soo xidhaya maaragtaanay qur-aanka marka qur-aanka ummaddu islaaxiyaa haddaad aragto ummad qur'aanka danaynaysa qur'aanka baranaysa qur'aanka jecel madaaristu u badanayso dadkaas waxay ka dhigan tahay dadnimadoodii baa soo noqonaysa fajazaahum allahu khayr macallimiintana waxaan leenahay ha ka daalina dhigidda qur'aanka aad dhigaysaan ha ka daalina laanna ilaahay baa inaga abaalmarin إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قرآن كان إلهي عزب وكسينا يا ضدنا إلهي عزب وكسينا كرب وقاذا يا ضدنا إلهي إسلا كتاب كان هوس إلهي أدقى يا ضدك قرآن كان برا برتا ku dhaqma ummadda ku xakumana ka shaqeeya quraankan sidoo kor u noqon lahaa quraanku kor buu u qaadayaa dadka quraankan intay bartaan gadaal iska dhigay wax kale shariicad wax kale dastuur iyo nidaam ka dhigtana quraanka ayaa la harayo naartu quraanku ku tuuraya القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعل أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها قرآنك وشافع ويان وإرقي سنة والله أقبل يا وماحل مصدق والضوض ويان عد الضوضنا دودي سوى الله أقبل والله الرميسن نبي يري من جعل أمامه قاده إلى الجنة قفك قرآنك هرتي سكيلا قرآنك الجنة حق يدو قاضيا قفك قرآنك حق دب اسكدغنا قرآنك نارتو كتراب نبي عليه الصلاة والسلام
quraanka xagga hore iska dhig macnihiigu waa maxay imaam ka dhiga quraanka had baranayso eed ku dhaqmayso eed umad ku dhaqayso eed maaragtaane ku tarbiyadeynaysid waa inuu ahaada qur'aan laana quraanku waa shariicad dhamaystiran oo ilaahay baa noo soo dejiyey marka ilaahay diinta hay nagu sugo aamiin dhahada لا تكونوا إن معبوا نبي قولي أن تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا هذا المعني سوها حديث dadka ku yiraahda anu hebelo macaagaan ahay hadnoqon buu nabi guri yani qof walba iska raaca qofka cidii u timaadaba ay kaxaysato hadnoqon waa dadka yiraahda buu nabi guri dadku haday wanaagsanaanay haday xumaadaanna maaragtaan iyaga uma ka midnahay ha oran buu nabi guri sida ha noqonina kuwa sida oranaya walaakin wadinu anfusakum ba nabi guri naftiina dariiqa mustaqiimka ku toosiya buu nabi guri dadku haday wanaagsanaadana la wanaagsanaada haday dadku xumaadaanna buu nabi guri ha xumanina buu rasuulku yiri la takunu macaagaan anu hebel baan la jiraa dadkaan la soconnaa caalamkaan la soconnaa bay ku odhanayaan qaarkood war caalamka xaguu socdaad la socoto sheekhe caalamka lala socdaaye caalamka xaguu socdaa caalamku haawiyuu ku socdaa ha raacin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo culimmadu warkay kuu sheegayaan raac caalamka waxba kaama gelin caalamku madaxu ku socdaa ilaahay iyo rasuulku waxay ku leeyihiin mijahaaga ku soo soco waad noo imanayeen afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahada amman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim lugahaaga ku soo soco lagu leeyo kaalay caalamkan la socdaa haddaad tiraahdo waxaad ka dhigan tahay indhali iyo dhageli ayaan dadka u raacayaa caalamku maanta ma indhaqabee ha ku dayan waa la indhabeelay way dhagabeeleen dadka adduunyada ku nool maanta meel kale u socdaan raacin cid walba ha raacin dhangaagaale ha noqon cid walba iska raaca ilaahay rasuulkiisa kitaabkiisa sunnada nabi maxamed raac warka culimmadu ay kugu yeedhayaan baaqa culimmada ajiib waad liibaani adduunkan iyo aakhire kuwa ilaahay nabiga raacay haynaga yeelo insha allah dhahada maasha allah ku dadaala khayr baa inoo muuqda khayr baa ifaya zaman wanaagsan baad moodaa inuu zamankan yahay runtii sida ummaddu khayrka ugu soo jeesatay innakana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu khaatimada inoo hagaajiyo waxaa khayran sheegaynana ilaahay inuu ka yeelo ikhlaas oo maalinka qiyaamahana ilaahay naga abaalmariyo